asalka marka waxa weeye kufri iyo shirki iyo bidco balad faafiday ku faaftay intishaarka ma keenayo in muayyanki dhaahiruhu sunnah dhaahiruhu alislam aha in lagu xukumo bil kufri aw al bid'ah war xukumka hadiyo waxa raaxiya meesha loo badan yahay awood u badan tahay diyaartu mar haday gaala ka taliyaan muslimka dhowrka iyo aqaliyada muslimada ictibaar ma laha qodobka koobaad ee talaalka waxaan leenahay kufrigu faafid uu bulsho ku dhax faafay ama balad uu ku dhax faafo ma keenayo asal ahaan in la xukumo man dhaahiru al-islam intishaaru al-kufri aw ash-shirki fi baladin la yaqtadi takfira man dhaahiru al-islam hadii bulsho heblo tuula lagu tuulada zinada ku badan matalan ninkii ka soo baxay assalaamu calaykum zaani baa tama dhihi kartaa hal tuuladan meeshaas ma taqaanaa waa zinada ku badan oo dumarka zinaysta ku badan oo ragga ku badan waa meel afaysan buu wadaad ku yiri mid kale ku sheegay hawshu waad aamint maalin dambe wadaad duub weyn ka soo baxay meesha ku salaam yaa taati reebel xagee ka timid tuuri eblay malkaas deganta hadaba zaani baa taati usura galba ruux walba wixii asaga ka muuqda ayaa lagu dhaqmaaya islaamnimo iyo gaalnimada waa asalka marka waxa weeye kufri iyo shirki iyo bidco balad faafiday ku faaftay intishaarka ma keenayo in muayyanki dhaahiruhu sunnah dhaahiruhu alislam aha in lagu xukumo bil kufri aw al bid'ah fal aslu ilhaq al fard bil a'am al aghlabi ma lam yadhhar khilafuhu ibn taymiyyah xagee ku biishubtay أحناف أو شيء تقريبا بكسو هاللي ضائفة مرتد ملحدة نينك كتر سنة إذا وناك هو سكوء وين ما حكوا حكومي إيش شيء واحد حكومي زان ومرتد لأن الأصل وام هو إلحاق الفرد بالأعم الأغلبي ما لم يظهر خلافه هذان هقولنا صب شيء كتبه إن وان كان أنكو أجنه وناك الدين تكفيرين منه لكن طائفة كفريات لقوا عن بعض ونصب شيء كانت ترسنا كان مديا هي وحن راعين إنها تلكيب وكحكمية وركوات فانتين بيلتاي وحال والله وان كان هذا قيمها بدن فتوى في دفع الزكاة إلى القلندرية صفحة اللحية تبنات مرتدين تا وضمضة كتاليان يا إحنا في حكومة هي أهل السنة يخلص كمسلمين كنا ولا من أود لهم مدح بنامبا مسوى الله يستيال هذا الله يستياليين أهل السنة دارت وامحي ودار كفر وحكى قدر وحول فتلك الدار دار كفر ويجب قتال أهلها وكل من يوجد في تلك الدار فهو كافر إلا من أظهر الإسلام إلا من ظهر الإسلام منه بيقين هذه قاعدة الفقهاء دارت المستضعف كوتا هاي المرتدين أي كتاليان ayaga murtadiinta iyo shacabka meesha joogo oo dhanba waa la dagaalami murtadiin baan laga soo qaadi allahumma ninkan ogaanay inuu yahay muslim aan ogaanay mooyee sidaa darteed baa nabi maxamed maka markuu weerarayay muslimiinta xabad ka duwan muusan dhigin mustaqbalka ku noolaa lama yaqaanaba waa la weeraray waa lagu halgamay yawmul hudaybiya nabi waa kii laba goor go'aan ka qaatay inuu weeraro لأنه مسلمين تمشوا كجرة أستامك قولوا لو يقنا ما يسن لهين معلومين ما يسن هين داتون ودانو كفر غلبة يحكم كقضاء نيسا مركان راح قاضي إن انتباه إن سيفتو إيشان قريسو نين كانوا قرنا إنه مسلم يهيبان كل حيننا لكن شعبكو حي قضاء نيان حكم الدار بيقاضم ورحكم كهذا يقول هذا راح يمشي اللو بدن يعود وبدنته diyaartu mar haday gaala ka taliyaan muslimka dhowrka iyo aqaliyada muslimada ictibaar ma laha hadaynu garanayno ictibaar ma laha yani fi xukm daar baynu ka hadlayna hadaynu garanayno xabada waynu ka duwayna hadaan la garanayno way qaadan ilaahay baana aakhira muxuu ahay jannaynaya iyaga anaga noo dambi dhaafi